kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta ku taxan janalkan Qays iyo Raxma. Maanta waxaan idin la wadaagi doonaa gabar kale oo Soomaali ah oo la waayay. Qof maqan ama la waayay Seattle, Washington. Gabar Soomaali ah ayaa la waayay bisha November 22 sanadkan 2022. Suraya Faarax 25 jir, dhererkeeda waa 5'8", dhismaha jirkeeda dhexdhexaad, timaha madow, ciwaanka nambarka keyskeeda waa 221773, Seattle, Washington. Suraya Cali Faarax ayaa markii ugu dambeysay la maqlay Arbacadii, November 16 duhurnimadii. Waxay ka maqnayd shaqada iyada oo aan la sheegin, telefoonkeeduna waa dansanaa tan iyo markaas. Baadhitaano ayaa boolisku sameeyey, si kastaba ha ahaatee gurigeedu wuxuu u eg yahay inaysan halkaas joogin dhowr maalmood. Waxyaabaheeda gaarka ah ayaa weli ku sugnaa guriga, waxaana caddaatay in Suraya aysan wax niyad ah u hayn in ay ka maqnaato guriga muddo dheer. Shakhsi ka mid ah asxaabteed ayaa yidhi, "Waxaan ka walaacsanahay xaaladda ay ku sugan tahay ee walaasheen Suraya Cali Faarax oo markii ugu dambeysay la maqlay Arbacadii, November 16 hal saac oo duhurnimo markii ay soo wacday shaqada, laakiin kadib markii ay ka maqnayd sharaxaad la'aan, gaar ahaan iyada oo shaqaale wanaagsan oo la isku halayn karo." Saaxiibada, qoyska, iyo dadka la shaqeeya ayaa la xidhiidhay booliiska si loo eego fayo-qabka Suraya. Guriga Suraya ma lahayn calaamad muujinaysa gelitaanka khasabka ah ama in la soo jebiyey oo xoog lagu soo galay. Si kastaba ha ahaatee, waxyaabaha lagama maarmaanka u ah sida daariyaha telefoonka iyo kaadhka bangiga ayaa weli guriga yaal. Waxaana caddaatay in Suraya aysan wax niyad ah u hayn inay ka maqnaato guriga muddo dheer. Waxaan u gudbinay warbixinta dadka maqan ee rasmiga ah ee Mountain Lake Police November 18 laga bilaabo 10 saac oo galabnimo ee November 19 ma jiro war cusub oo ku saabsan warbixinteeda booliiska. Ma jiro qof maqan oo ka digay ama nooc kasta oo dadweyne ah dhaqdhaqaaq lagu baraarujinayo dadweynaha guud ahaan waayideeda. Ehelada Suuriya ayaa ka walaacsan sababta booliiska qaybta dadka la waayo ka gaabiyeen baadigoobka Suuriya. Suraya meesan la soo xidhiidhin asxaabta iyo qoyska muddada ay maqneed. Telefoonkeedu waxa uu dhintay in ka badan 48 saacadood. Waxaan weydiisanaynaa dadweynaha inay saxeexaan codsigan si ay ugu cadaadiyaan booliiska Mountain Lake iyo Snohomish County 911 inay mudnaanta siiyaan baaritaankan. Ma sugi karno wax intaa ka badan, daqiiqad kasta waa la xisaabiyaa. Fadlan la wadaag codsigan si weyn oo fariin ahaan u dir si aan u hubino in kiisku uu sii ahaado meesha ugu sarreysa ee sanduuqooda. Fadlan ku soo qor fariintaada aad 911 Snohomish. Saldhigga booliiska 4254-73999. Fadlan sheer garee muuqaalkan. Waxaan rajaynaynaa walaasheen Suraya si nabad ah inay u soo noqoto. Qoraalkaasina waxaa soo qoray shakhsi ka mid ah Suraya asxaabteeda. Wararka qaar oo lagu soo daabacay Facebook oo aan la hubin ayaa sheegaya in Suraya la helay, laakiin warkaasi lama hubo maxaa yeelay websaytka rasmiga ah ee booliiska Seattle laguma soo qorin in la helay. Qoraalka booliiska ugu dambeeyey waa qoraal ku saabsan baadigoobka Suraya. Qofka soo qoray wuxuu ciwaan ka dhigay ehelada Suraya. Wuxuu yidhi, "Warbixin, alxamdulilah, fadliga alle Suraya waa la helay, waana badqabtay. Anigoo ku hadlaya magaca qoyska Suraya, asxaabta iyo gacaladeeda, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo ducadooda iyo u doodida si loo faafiyo wacyiga qofka maqan ee Suraya. Waxaan idinka codsanaynaa inaad ixtiraamto oo aad bixin sirta qoyska inta lagu jiro wakhtigan adag. Mar labaad, waad ku mahadsantihiin cid kasta oo nala murugootay oo muuqaalka wadaagtay. Bulshadu waa aalad awood leh, taasna waxay ahayd tusaale weyn." Qoraalkaasina waxaa soo qoray qof aan magaciisa shaacin laakiin ku hadlayo magaca qoyska gabadha la waayay Suraya Cali Faarax. Haddaba, haddii aad hayso wax macluumaad ah oo ku saabsan Suraya Cali Faarax, fadlan wac booliiska Seattle, Washington 647-786-723 ama 911. Waad mahadsantihiin dhammaan. Anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca janalka Qays iyo Raxma, waxaan idin leenahay sanad cusub oo wanaagsan. Inta naga maqan Allah soo aruuriyo oo nabad ku soo celiyo. Kulanti dambe oo xiisa leh.